dhegeystayaal waxaanu idiin haynaa war farxad leh oo ku saabsan jamhuuriyadda somalilan, warkaasoo ah war ay ku farxi doonaan in fara badan oo ka mid ah dhalinyarada jamhuuriyadda somalilan. waa fursad qaali ah oo usoo kordhay dalka imaaraadka carabta ayaa waxa uu dhammaan shahaadooyinka jamhuuriyadda somalilan u aqoonsaday inay dalkiisa lagu dhigan karo ama jaamacadihiisa iyo iskuuladiisa kala duwan. wuxuuna aqoonsaday shahaado kastoo dalka somalilan kasoo baxda ama ay dugsiyadeedu ay sitaan ardaydoodu. sidaas darteed waxay noqotay fursadii ugu qaalisanayd oo soo marta shacabka jamhuuriyadda somalilan, waxaana ay kamid tahay qayb kamida tahay aqoonsigii inta faraha badan la sugayey, aqoonsigaasoo muddo 29 sannadood ku dhow la sugayey. marba tallaabo la qaadayay, somalilanna ay soo martay marxalado kala duwan. hadda waa farxaddii ugu weyneyd ee usoo korodha dalka somalilan, maadaama ay jaanis heleen dhammaan daayartii jamhuuriyadda somalilan. marka waxaan kula talinayaa dhammaan dhalinyarada jamhuuriyadda somalilan inay ka faa'iideystaan fursadan qaaliga ee usoo martay. waana fursad qaali ah oo iyo qayb ka mid a aqoonsigii aynu sugaynay muddada faraha badan. haddaba waxaan kula talinayaa dhammaan shacabka jamhuuriyadda somalilan inay kasii kordhiyaan halkaa dadaalkooda aqoonsi raadinta ah iyo dadaalka ilaashinta ay ilaashanayaan nabadooda iyo horumarkooda. gacmahana ay isqabsadaan dhammaan dalka daayarta jamhuuriyadda somalilan iyo bulshada kala duwan ee jamhuuriyadda somalilan. sidaasoo aynu ku gaari doono maalin dhow wixii aynu sugaynay muddada faraha badan. marka waxaan idin rajaynayaa dhammaantiin